kusoo dhawaada waa qayb ka mid ah barnaamijka buufiska waxaan idin barayaa American English. American English way adag tahay si lagu baro markii runta laga hadlayo Soomaaliya markii laga hadlayo. Qof ku dhex nool waxaan fahansan luqadda Mareykanka attention fiican siiyay adsalaan ani ciyaalkii waxaa ka mid ahay private-yada Ingiriiska ku dhigin jiray markii dambena macallin ka noqday. Private-yada ay dhiganaynina hal American lagu barin kulli wax bridge ahaayeen. Soomaaliya aan sina aniga hadda intaan imaan Mareykan ka hor ereyga waxaa isticmaali jiray trash markii laga hadlayo qashinka banaanka lagu tuuro. waxaa isticmaali jiray trousers marka laga hadlayo sulwaarka la gashto ma fahamtid bahalkan wiishkan guryaha lagu koro lift ay isticmaali jirin pavement ay isticmaali jirin marka laga hadlayo wadada meeshan dhinac lagu socdo waxaas dhan hadda daaqada ka tuuray barayga soo galay wixii trash la dhihi jiray hadda meeshan waa garbage ayaa dhahnaa wixii trousers la dhihi jiray sulwaar hadda waxaa dhahnaa ama aan dhahaa ereyga isticmaalo waa pants sidoo kale lift maba dhahaba waxaa dhahaa elevator war horta intaas mislifaan mana dhaho pavement waxaa dhahaa sidewalk hadda ma dhaho flat waxaa dhahaa apartment marka isbedelo waaweyn aa jiro markaa Mareykanka soo gashid Ingiriiskii lagu soo baray qaar ka mid ah daaqadu ka baxaya adi grammarka hadda waagii waxaana loo dhigi jiray 12 tennis uu leeyahay Ingiriiska grammarka waa saan hadda wax kala dib macalinka wuxuu bonti ka goosanaa Soomaa wuxuu ku siinaa 56 maxaa yeelay structure-kii sentence ama jumladii ama tense wixii qalad war waxaas ka kacay ahaayeen macallimiintii wixii naga qaldi jiray ciilkooda had ahay soo sida hadda waxa ku dhahayaa hadda soo quraacday aan rabaa inaan ku dhaho qaab British iyo qaab Mareykan British wuxuu dhahaa I've just had my breakfast wadinku cilna I've just had my breakfast wa British Mareykanku wuxuu dhahaa Mareykanku wuxuu dhahaa I just had breakfast half tii meesha ka saaray ma fahant British wuxuu dhahaa I've just finished Mareykanku wuxuu dhahaa I finished marka half tii iyo did inta geli iyo dhan inta geli iyo present participle ka dhig past participle ka dhig wixii oo dhan asxaabay ka farxasha waayahay hadda qaybta fadhiga jooga waxa idin gudbinayaa fadhiga waa wada taqaanin inta badan hadda waxaan dadaa ka nixi doona u malayn doona waxa inuu ibaabiyaa waxaan waa daaqad guriga banaanka ah ka daawado waaye waa fahanteen soo ma kaas waa taqaanaan waa TV qaybtan derbiga guriga qaybtan baalkan u jeedaan hadeertan waa chimney guriga wax bulkeetiga lagu dhex dhisaa waxay tahay maxaa yeelay guriga waxa ku yaalo fireplace maadaama aad u qabownahay xiliyadan hadda aan ku jirno oo kale fireplace marka bahalkan aan shidaya aqaare fan ma aha waxba idin baraya okay sida u jeedaan hadda dabkiya bilowday marka dabka guriga dhan wuxuu ka dhigaa guriga dhan wuxuu ka dhigayaa kuleel taasna waa loo damiyaa marka fireplace maxaa lahaa fireplace waayo intiina badan dadka Ingiriisku u bilaawan yahay jikada waa kala taqaanaan qaybtan jikada waxaan hadda u jeedaan gacmaha ku taabanayo waxa waaye waa countertop qaybta jikada wax iskaga cun hadee marti ku imaato tusaale ahaan labada kursi ku fadhiisine adna dhankaan ka soo jeedaa waxyaa karinaysa meesha wax lagu kariyo waatan jikada meesha wax lagu dhaqayo waatan wixii oo dhan marka countertop kan waa wada taqaanaan gabi ahaantiinaba dadka Ingiriisku u bilaawan yahay kan maxaa lahaye Ingiriisku waxa ku soo baranay bilow fasalka koowaad cupboard maxaa lahaa cupboard dad qaar cabinet dhaho laakiin cupboard ayaa u badan tahay macnaha marka bahaladan la furo waa cupboard waxa ku jiro cupboard waxa ku jiro saxamanka ama maacuunta hadba soo taqaanid saxanka weyn saxanka ku sii xigo saxanka yar baaquliga weyn baaquliga yar macnaha almuhim waa meesha saxamada ay ku jiraan waxa loo yaqaanaa cupboard hadda maxaa sameeyay marka I just opened the cupboard saxana soo qaaday maxaa lagu dhahaa I just took out a plate I took out a plate sidoo kale bahalkan saan loo soo jiido wax alaaliyo waxa saan loo soo jiido afka Mareykanka waxa ku dhahnaa drawers waa meesha mindiyaha qaandada fargeetada wax alaaliyo wixii loo baahan yahay ee wax lagu cuno waa meesha ay ku jiraan waxa loo yaqaanaa drawers okay layliya idin siinaa bahalkan ha lagu soo sheego ha la soo sheego bahalkaas commentiga oo akhrin doona oo ansixi doona baalkan asna ha la soo sheego wuxuu yahay idin sheegaa halkaas kafaaya ku jiro soo sheega wax lagu dhaho English kan
waxaa lagu kululeeyaa rootiga iyo waxyaabahaas marka soo sheega asagana layli waaye waxaa idinka rabaa saddexdan midkaan iyo midkaan